السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا داوديال كانالka dacwa tube magacaygu waa Zaki Maxamuud maanta waxa idin soo gudbinayaa qisadeena waxay ku bilaabanaysaa sidatan Hamza waa wiil dhalinyaro oo muslim ah kana soo jeeda wadanka Carabta wuxuuna wax ka bartaa wadanka Ingiriiska wuxuu la noolaa qoys ka kooban hooyo aabe kuwaas oo dhalay gabar 6 sano jir ahayd maalin maalmaha kamid ah waxay go'aansadeen inay u baxaan arin iyaga u gaar ahayd aabihi ayaa Hamza ka codsaday inuu ka soo guuro qolkiisa una soo guuro qolkooda si uu la sii joogo gabadh yareed Hamza wuu aqbalay codsigii saacado intay maqnaayeen ninkii xaaskiisa gabadh yareed waxa ay gashay jikada waxaana gacanta ugu dhacay bakeeri markaas jabsanaa kaasoo gacanta ka dhaawacay Hamza waxa uu maqlay oohinta gabadh yareed wuxuuna u yimid iyadoo ku qaylinaysa hooyaday way garaacaysaa Hamza waxa uu ku yiri gabadh yareed ha cabsanin hadii ay hooyada ku weydiiso waxaad ku tirahdaa hooyo aniga ayuu iga jawaabay bakeeriga markii ay soo noqotay hooyadii ay aragtay bakeeriga jabsanaa wayna weydiisay gabadh yareed waxayna u sheegtay hadalkii ku yiri Hamza markii la gaaray galabkii gabadh yareed waxay aaday Hamza waxayna u sheegtay iyadoo ooynaysa inaysan caawa seexan karin anigoo been u sheegay hooyaday kadib waxay aaday hooyadii waxayna u sheegtay runta wax yar kadib hooyadii waxay u tagtay Hamza waxayna ku tiri markii aan dhalay gabadhan waxaan ku soo barbaariyay oo aan baray runta waana markii ugu horeysay ay been ii sheegto mana garanaya sababta ku kaliftay gabadheeda inay been ii sheegto adigaana u sheegay waxaadna tahay qof muslim ah waxaynu ognahay in nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu ahaa mid run badan oo lagu naaneysi jiray saadiqul amiin waxayna soo xasuusisay xadiidkii ahaa alaykum bisidq fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna xadiidkaas oo micnihiisu yahay dushiina waxa ahaatay inaad run sheegtaan maxaa yeelay runta waxay idinku hanuunisaa wanaaguna wuxuu idinku toosinayaa jannada hooyadii waxa ay ku tiri uma burburinayo shakhsiyadda gabadheeda qamada xunxun sida beenta waxaad haysataa 24 saac si aad ugu baxdid gurigeena Hamza wuxuu ka soo tagay gurigii uu martida ka ahaa isagoo murugaysan isla markiiba wuxuu alle ka balan qaaday inuusan mar dambe been sheegin kadib markii Hamza uu dhameystay waxbarashadiisa wuxuu ku soo laabtay wadankiisa maalin maalmaha kamid ah Hamza isagoo salaada subax ka soo laabtay wuxuu arkay nin ganacsada ah oo ay diris ahaayeen oo gaarigiisa ku dhuftay imaamkii masjidka ninkii ganacsada ah ma uusan ogeyn inuu arkayo Hamza wuxuuna si kaxaystay gaarigiisa kadib Hamza wuxuu soo degdegay dhinacii imaamka wuxuuna u qaaday isbitaalka daqiiqado kadib wuxuu wacay booliiska si ay u soo qabtaan ninkii ganacsada ahaa waxayna ku guuleystay inay soo qabtaan kadib ninkii ganacsada ahaa wuxuu inkiray inuu imaamka gaariga ku dhuftay Hamza ayaa booliiska ku yiri anigaan arkay markii uu ku dhufanay gaariga imaamka ninkii ganacsada ahaa ayaa ugu hanjabay inuu dili doono hadii uusan ka laabanin hadalkiisa ha inuu arkay markii uu gaariga ku dhufanayay Hamza ma uusan daneenin hanjabaadiisa wuxuuna ku adkaystay inuu arkay markii uu ku dhufanay gaariga intaas kadib waxa soo caafimaaday imaamkii masjidka wuxuuna maxkamadda horteeda ka cadeeyay inuu ku dhuftay ninkan ganacsada ahaa wuxuuna rabay inuu idilo maxaa yeelay waxaan u diiday inaan gabadheeda ku daro haddaba halkaas waxa inoogu soo dhamaaday qisadeeni quruxda badneed ee ka hadlaysay run sheegidda waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.